وزير ديها وزارة وحبرشة تعليم تسري ومسؤولين سرسري وزارة وحبرشة يحفز كامتحانات كصعدة أياسيا ببحي قيبه ودن بي جديد كقاضي عقب كامتحانات كقرن كوسر رسمي لوجو فريسان دونا مالنتها حدا إفرض ونقص هايسا كلن كان بلادين لوجسيا ببحين يجودها بدولة كندونا دالكا iyadoo hore ay u ambabixeen gobolka Sanaag ayaa guud ahaan lixda gobol ee kale oo ku jira gobolka Maroodijeex iyana waxaa hawshooda lagu soo gunaanay saaka xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland oo waran madashaasi waxaa la kooban ka jeedisay agaasinka maamulka iyo xisaabaadka ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mariyo Fadxiye Dibad oo tilmaantay in ay diyaar u yihiin in ay gaadhaan gaadiidkani guud ahaanba goobihii loogu talagalay inta ka horeysa imtixaanaadka qaranka waxaa halkan taagan arkaysaan baabuurtii gobolada u baxayay imtixaankiisa kuwa maanta baxaya waxay u baxayaan gobolka Togdheer gobolka Saaxil iyo Awdal iyadoo aan shalay tira ay baxeen gobolka Sool iyo Sanaag iyo Togdheer iyo Buuhoodle ay baxeen sidoo kale iyaduna madashaasi waxaa la kooban ka jeediyay isduuyaasha kala duwan ee gobolada Togdheer Saaxil iyo sidoo kale gobolka Awdal kuwaas oo dhamaantood tilmaamay in ay xil iska saari doonaan hawsha ballaaran ee qaranku u yimaday waxaana madashaasi hadallo kooban oo dardaaran iyo talooyin isugu jira ka jeediyay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Mudane Xasan Qalinle oo kula dardaarmay mas'uuliyiintaasi inay si taxaddar leh u galaan hawshaasi gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mudane Axmed Nuur Faahiye oo madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in qaybtani ay noqonayso qaybtii u dambeysay isla markaasina ka wasaaraddan ay ku rajaynayeen in Ilaahay uu ku soo guuleeyo mas'uuliyiinta iyo dhammaanba haweenada imtixaanaadka hawsha qaran ee baaxadda leh ee waqtigan ay galayaan arrintaas loo baxayo oo dhici doonta bisha 7 oo maalinta Axadda ku beegan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka dhici doonto imtixaankii shahaadiga ahaa oo ay u fariisan doonaan tira ku dhow 24,000 oo arday dalkoo dhan oo shahaadiya 14,000 iyo dheeraad isugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo 9,000 oo dugsiga sare waxa weeye maanta waa maalin weyn marka sidaa loo eego waxa weeye waa maalin weyn oo qaranka ku weyn oo dadka ku weyn oo shacabka reer Soomaaliland ku weyn waxa weeye waa maalin 24,000 ay ku soo biiri doonaan saaxadii aqoon